صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن حليته هولقلب بلارن وعيدمada xoogga dalka Soomaaliyeed cutubyo ka tirsan iyo ciidamada AMISOM ay ka fuliyeen deegaano kala duwan oo gobolada Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose, gaar ahaan Mubaarak, Torotoro, Farsoole, Jannaale iyo meelo kala duwan waxaa laga soo hooyay guulo aad u balbalaaran. Mubaarak oo kaliya xalayta ciidamadeena galay cutubka afraad kumandanab iyo cutubka labaad dugsiga tababarka General Gordon waxay ka fuliyeen howlgal aad u ballaaran oo lagu guuleystay. howlgalkaas waxaa lagu burburiyay raadiyo FM oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulada Mubaarak. waxaa lagu burburiyay laba baabuur oo diyaarsan oo qaraxyo ah oo markaas dhaqaaq diyaar u soo laga yaabo inay magaalada madaxda u soo socdeen. waxaa laga helay bakhaar buuxa oo ashyaada qaraxda ay ka buuxdo sida baaruudda, baasuukaha, baaruudyada kala duwan, fuyuusyada, fiilooyinka, batariyada, simikaarada iyo wixii lamid ah yaa iyagana gacanta lagu dhigay. labadii baabuur saakayto ciidamadu way qarxiyeen, waa gubeen, isla Mubaarak bay ku gubeen. ashyaadii kalena maanta la gubayaa. waxaa kaloo halkaas laga helay rasaas badan oo qoriga BKM-ka iyo baasuukaha, tuute, jawaanada difaaca la dhigto iyo shidaal badan oo ciidankan isticmaali doono yaa laga qaniimaystay. khasaaro badanna wuu ku dhacay cadowga. haddana baacsi baa lagu sii wadaa. isla maantay waxaad howlgalka iyo xabaddu ka socotaa deegaanka Torotoro iyo Farsoole iyo Jannaale. wixii khasaaro ah oo intaas ka dambeeya iyo wixii warbixina dib gudbin doonaa. intaana waa intii hordhac ahayd oo aan siinay. dagaalkaas wuxuu bilaabmay xalayta 11 habeenimo ama shantii habeenimo oo dambe oo salaada subax waqtigeedii ah iyo dagaalkaas u dhacay. guul ballaaran baa laga gaaray. ciidamada kalena warbixintooda aan sugaynaa. wixii cadowga gaara iyo wixii annagana gaara waa inuu soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala. howlgalladiina si ballaaran oo dhammaystiran bay uga socdaan gobolka Shabeellada Hoose. insha Allah gobollo kale aan ku xijin doonaa, waana ku guuleysan doonaa insha Allah ta'ala. cadowga Soomaaliyeedna waa ka saari doonaa mantiqada deegaanada ay ku jiraan si ummadda Soomaaliyeed dawladnimo iyo qarannimo ugu raaxaysato, nabadgelyo ballaaran ay u hesho. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum warahmatullahi. meelaha ugu badan abaduule khasaaraha xoog leh loo geystay maleeshiyaadka nabaddiidka ee Al-Shabaab. Mubaarak kaliya miyaa mise deegaano kale ayaa jira oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan? deegaano kale jira sida Torotoro, laakiin waxaan rabnaa khasaaraha oo dhammaystiran in soo wada gudbiyaan. ciidanku jihooyin kala duwan bay ka galeen. hadda laba jahan ka haynaa. khasaarihii soo gudbiyeen labadii jiho kale ma hayno, way noo soo gudbinayaan. markay noo soo dhammaystiraan baan soo gudbin doonaa. sidoo kale Farsoole ciidanku waa galay xalayto saacadihii dambe u galay ayana waa noo soo gudbin doonaa wixii khasaaro ah. howlgalladii iyo baacsigii baa hadda socda. cadowga la baacsanayay meel walbana ciidankii Soomaalida baa guusha helay sida saraakiishii hogaaminaysa cutubyada dagaalamaya ay noo soo tabiyeen. waxaan la rabaa dagaal inta laga soo haro lama rabo, waa la dhammaystiraya. godkay galaanba waa lala geliyaa. gaadiid gaashaaman oo fiican iyo tiknika fudud baa la wataa. mana laga harayo cadowga insha Allah ta'ala. mana noqon doonto maalin inta meel la tagay waa la dabagelayaa. ilaa laga dhammaystiro oo cadowga godku galaba loola galo. ciidankii saaka baacsiga galayna wali waxay hadda sii marayaan gobolka Bayba isla galeen. waxayna ilaa hadda soo gubeen kuwii saakay eryanayay. waxay soo tabiyeen hal baabuur oo ay gubeen. ilaa 3 baabuur oo kale waa ka soo horeysa. waa daba soconaaba yiraahdeen kana harimayna 3 kale aan soo qabanna maahan iyo waxa saaranba. hawshii marka saas u socotaa. waa hawl xalay galinkii dambe bilaabatay. dhammaystirkeeduna ilaa maanta waa heli doonaa ilaa galabta ilaa caawa. cutubyaduna jihooyin kala duwan iyo degmooyin kala duwan iyo aaga kala duwan iyo waajibaad kala duwan bay lahaayeen. marka iyaga noo soo tabin doona waxay soo tabiyaan ummadda Soomaaliyeed, madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed baa u soo gudbinayna insha Allah ta'ala. Al-Shabaab dadka dhibaato xoog leh ku qabaan oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan iyo deegaano kale oo gobolka Bay ka tirsan. meelaha ciidamada ay tageen ciidamada lagu reebay mise waa ciidamadu ay ka sii baxeen? maya hadda dagaal baa socda. waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala dawlad goboleedyadu inay awood u helaan booliiskooda localka inay dhigtaan ay ku filaadaan. laanno waxaan rabnaa inaan qof Al-Shabaab mantiqada deegaanka ku noolaan. ilaa 25 aag baa weerar ka socda oo gobolkaas waana inta ay joogaan. 25kaas aag oo weerar ka socdana in lagu laayaan rabnaa. marka lagu laayo waxa la helayaa إيشك عيداً كبوليس كأنه شغال يسوي واجبات كذا قبصده قدومياش الدقموين كيتولين كنا شغال قبصدان قدوميها قبل كانوا شغال يسقبصده شغال أصلاً معها شغال أنت مال إسكفر يستعيق إن يمدان للسوقية وامد ما أنت الريانية تطلع النوار كاسو تشوكتها صعنية إلى يمدوا لما يشوا عرّي الله قد بتجو